بلانتنوا والكيف بقول بقي قليل لقو برتما كساقا كبير صبح بارشو أولاد الله خير حلبانada qoyska iyo masalka iyo maqaamka ay leedahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام كل واحد اسكتشر ما هالشيء قاعد يحل الظهر نصاب حنا قبل قابة اسكتشرتي وخلد هو خدمه يا مكب وحول قبانيا يوم بروح أكلم نتعلم يا واحد دون قدام يستلم متشرا مركا عد كستو حنكرها اللي قلنا يا ونكرها اللي قلنا أنت أي هوشة كتشر وح على وحي مستيقظ وح على وحي خالد يا دعي حالها لقى هذا قلبتها وقلب فرحات وحنقصو تشرني مدة هول أتكيد أو أين أيام سوهيني هوشة صاحب دور الشدي سكول وإنه قنتي جبدي قلبت سوقنا لني عاد بقى فرحسين الحمد لله رب العالمين إنه قلبت إنه دمانتين هالكساوي كذا فرحسين إنه قلبت يسعر منه حينه قلب بدن سكوني إنه هوليسن إنه قلب بدن قيلنا إنه قلب بدن هول بدن فراق كل شيء لكن الحمد لله رب العالمين قلبت أي تاي قلبت معاه وحينه استغالية طبعا كبيش نوفمبر تاي لبكون يلقوا يلاتن وحينه قلبت هالكن سكون نصينه يتبالتك حنا هالكن ربنا نقول مهد عليو وهوشن إنه في أرضي كبحر إسكول كسنة كوري أرضي فونفورة وإن كلت شو ولا الذين مهد عبد الرحمن عيدي سعيد فوسي عبد الرحمن إنت أحمد به السنة اللي قلت شوان هرجع إنه هالمرة صعب إنه ودنا سنت ورايا dadkiina waxa laga fiinay Suudiya santar hawshan iyo waxaan alaab iyo waxaan oo qarashay xaga laakiin wax Allah waxa ka kharash ku baxay wax Allah wixii saxaafad cameraman jooga bartan aynu fadhino intaaba iyaga ayaa dusha u higtay waliba waxay noogula dardaarmeen oo waliba ay noo ballan qaadeen inay middan ka haboon ka fiican oo dhigayaan annaga ayaa waxaan kaga dhignay sanduulo ku niri galabta hadeen la dhaafto annaga nooga taalo sababtana waxay ahayd wax kasta inta cusub iyo bixiisleen waxaan saday wuxuu ay inta dhaafto xisaab ka dhimeen dadkuna hadda ayay arinta wixii qabeen marka hadalka oo gaaban kelmad ayaa waxaan siin doonaa gudigeena aynu dooranay ugu horeeyay gudoomiyaha iskuulka iyo labada gudoomiye ku xigeen waxyaha ardayda inoo timi walaalaheena kelmad baynu siin doonaa hadii la hayo hawshii adkayd ee aynu muddada ku soo jirnay maanta ayay bilow tahay waxaynu rabnaa inaynu halka ka sii amba qaadno halkan waxaa fadhiyay xildhibaanadii gudida soo doortay qurux badan xildhibaanow dad ayaanu la tartamin arday kale ama guddi la tartamisay ardaydu waa walaalaheen iskoolkuna siyaasaddu intay jirto uma jirtaa Soomaaliya xukuumadda siyaasaddu dan joogta ma saaxiibkeena dan joogta weelay laakiin waynu u bedelnaa siyaasaddu waxa leeyahay saaxiib joogta oo ayaamihii iska dhamaadeen Soomaaliya waxay taadaa waxa iskaashata ma kufta haday kuftana ma jabto afartii arday ee halka galabta aynu dooranay ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xagayaha iskoolka afartu waxa isku hayaan hal urur oo isku tusan xisbi la tusmiye tira wadaag nin walba boorkiisa arkana kelmadaas aan ugu wada qornay taas marka waxay ahayd wax lagu farxo in afar arday oo isku hal dhinac ka soo iskarabsanayay inay doorasho iskoolka soo baxaan hadalkoo gaaban haddii ilaahay waxaan kelmad siin doonaa gudoomiyaha ayaan kelmad siin doonaa gudida kale way ku xigi doontaa waa habeen waa maqrib inaan caraabi doonaa waxaan codsan inoo soo gabagabeeyaan gudoomiye Cabdiqani Cabdirashiid Maxamed Cabwaan Ciiro ku soo dhawaad marka ugu horeysa faa'iideen maxad celinaya waxaan ka mahad celinayaa inaad inta gurihiina ka timaadeen aad halkaan noogu timaadeen si aad farxadda iyo raynta aad noola qaybsataan guushii kadib guushana waxaad ahaydeen garbaheedii oo idinka sameeyay waxaad ahayd guul sameeyayaashii baad ahaydeen dhammaantiin xildhibaanaad tihiin ama si uun baad xildhibaan u ahaydeen codkii noo dhiibateen ama xildhibaan aynaan ahaanin ama aad ahaataan mar walba cod baad dhiibateen oo ama xildhibaan baad dooratay ama xildhibaan baad tahay gudoomiyaha dooratay marka ugu horeysa marka waxaan ka mahad celinayaa dhammaantiin halkaan inaad waqtigiina noo soo hordheen oo aad halkaan noogu timaadeen sharaf gooniye bay annaga noo tahay runtiina aad baan ugu faraxsanahay intiina oo dhammaantiin qalbiga aan walaalo ka nahay iskuulka Gamboolna aan isla dhiganaa intaad gurihiina ka timaadeen oo hawlihiina galabta idin yaalay aad soo xayideen inaad halkaan noogu timaadaan soo hor fariisateen
aan ognahay hawlaha iyo caqabadaha iyo waxa weeye qof walba hawla u taala hawla u yaala gabdhaha hawla u yaala wiilashan hawla gaar ah u yaala waxa laga yaabaa qaarkood inay maanta sports aad ilaahay kubad xogaa soo ciyaari lahaayeen gabdhaha waxa laga yaabaa inay guryahooda hawla ka qaban lahaayeen waxa weeye waqti qaaliya baad noo hudheen waa ku mahadsantiin marka ugu horeysa insha Allah bishiriin kulankan aan maanta isugu nimin wax kale ma ahan waa inaan ka nasano ololihii iyo campaign-kii tirada badnaa iyo telefoonadii tirada badnaa la soo wacayay oo waxa weeye codka la idinka raadinayay inaan ka nasano baan halkaas ugu nimin maanta aan cawda uga soo baxno shayga macaan aan qaadano beris waxayoo sabtiya aan iskuulka aadaan idinkoo jawi macaan soo qaatay soo nastay waxa weeye telefoonadii iyo koolashii iyo maaseedyadii badnaa idin soo dhacayay xoogaa maskaxda ay ka baxday qofka bini'aadamka ahi markuu buuq iyo hawlo badan galo maskaxdu waxa gelaya xoogaa wax ku furmaya buuq iyo culays baa gelaya culayskana waxa looga bixi karaa kaliya waxa weeye inaad meel nasiina ama banaankaan kale u soo baxdid hadda saakay markaan banaanka u soo baxay tan iyo xalay baan xoogaa seexday intii ka horeysay de campaign iyo olole iyo cod raadis baan ku jiray xalay xoogaa markaan seexday saakay baan aruureed baan hadana soo kacayo waxaan u soo kacay intiinaan de in la isu keenay hawl fog ma markaan banaanka u soo baxay waxaan dareemay nafis aad u fara badan baa dareemay nasiinaan dareemay jawi macaan baa soo galay xoogaa culayskii badnaayo isaarnaa dee waa iga degay anoo faraxsan baa caawa magaalada gelaya oo intiinaana idin hor istaagay berrina aad iga horraysaano intiinaana aad tihiin haddana dadka codka isiiya qaar badankiin oo waxa weeye isoo saaray aad tihiin marka runtii farxad gooniya bay ii tahay idinkana waxaan idinkugu yeernay oo aan isugu kin yeernay waa farxaddaas inaad nala qaadataan waan filayaa oo waan dareensanahay midaan ka wanaagsan oo ka weyn baa sugayseen laakiin waqtiga baa noo saamixi waayay galabtay waxay noqotay inaan si degdeg aan isugu yeerno hadday jamcada dhaaftana waxay noola ekaatay xoogaa inay dadka xiisaha iyo xamaasaddu ay ka baa'iso waxa laga yaabaa xamaasaddu maalintii ay nala doortay tan way ka duganeyd hadda intiinaana la isu keenay laakiin haddii maalintii aanu dhihi lahayn dadkaan isu keenno dhammaantiin waa soo fariisan lahay dadkii xildhibaanada ahaa sidii kuwii kaambeynarada ahaa marka waxay noqon lahayd 500 qof inaan halkaas ugu keenay noqon lahay laakiin waxaa yareeyay dadkii waxa weeye oga xamaasadii baa ka baaday dad badan baa la wacay hawla qabsaday sababtu waxa weeye hadii berri aan dib u dhigi lahayn qaar badan halkan fadhiyahay xoogaa xamaasadda hadda ku jidha baa ka bixi lahayd marka xamaasaddaas baan soo kiyaarnay iyo farxaddaas intaas baan u nimin halkaa insha Allah bikriin jawi macaan baa la qaadanaya waxa weeye nasiinada hal qaato kadibna inta gaariyaasha la raaco si degan oo waxa weeye mas'uuliyad baa naga saaran intiina hadda anaga isu kiyaarnay haddii hal gabar wax gaaraan iyo haddii hal wiil wax gaaraan cidda la weydiinayo waa anaga Soomaa أنا اللي وديني واحد اللي قدوميها واحد بير هالكاس العيال في نقلة هذه ونقول لا يجوا على الحياة مرة بينا هذا مرة بينا هذا مرة يقف صديق مرة بينا مرة يقف صنيع إن شاء الله بيكونوا حيقف صنيع بابور راعي دونتان قبلها بابور بنصاري دونا ويلش أنا قاريال بنصاري قفل بقاريال صاروا راعيا ليش قاريال سكوت دشيا كده كنيسة أما مقاريال كده أما واحد ويقولي الوجود دشيا أما قالوا وده بحد هذا السيد هذا يكون صالح لكن أنت قاريال الكاري ترى أول كلام مسؤولية بسارن تقولين وحن مالين قاركود إنه يشوفه مسؤولية بعد سارن أنت تصير عطان وضداس أصيح يسوي حلين كربا طبعا قف طبعا كقف مسؤولية كاسارن إن قاعدتي بالغاها وتوه سبتين هذه طبعا كاس بقاري وجدوا وحجارين إن أنا كنا ولا قبصنا يو هذه كنا ولا قبصنا يو بس حرشين يا مسؤولية ما يعني سارن